isagana mid ka mid ah kaneecada ayaa sanka ka gashay oo maskaxda u fadhiisatay. waanu awoodi waayey si uu iskaga soo saaro kaneecadaas. madaxiisa ayuu markaste bir la dhici jiray si uu xanuunka iyo kaarka ay ku hayso uga joojiso. ugu dambeyntiina waa uu ku geeriyooday. fircoon waa mid ka mid ah boqoradii daaqiga ahaa ee soo maray koonkan. waxaanu ku soo beegmay ahdigii nebi muuse calayhi salaam. qur'aanka kariimkana alla subxaanahu wa tacaala in badan ayuu kaga hadlay qisadii nebi muuse iyo fircoon. waxuu sheegtay ilaahnimo, waxaanu adoonsan jiray reer bani israa'iil. waxaanu isku dayey inuu nebi muuse dilo. allana wax uu ku halaagay badda markii uu nebi muuse ushiisa ku dhuftay badda oo allana uga furay waddo. markii ay ka gudbeen nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkii reer bani israa'iil ee soo raacay nebi muuse ayuu alla ku halaagay baddii fircoon iyo ciidankiisiiba. jidhkiisiina alla waa uu reebay fircoon isagoo cibro qaadasho uga dhigaya addoommadiisa.